kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka rajo qaran TV waxaana ugu dooron Dani iyo Axmed Madoobe oo qarka u saaran inay qaadacaan shirka dhuusamareeb 3 iyo beesha caalamka oo fariin adag u dirtay fila Soomaaliya shir afar geesood oo ka socda dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan xog idinkaga hayaa daawadayaal gudoomiyaha aqalka sare oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo dalka oo gali doona xaalad adag dawladda oo sheegtay in howlgal lagu qabtay xubno ka tirsan al-shabaab ay ka sameysay degmada Kuntuwaari mid ka mid ah shabaabkii fuliyay weerarkii xabsiga dhexe xooga muhiim ah bixiyay saraakiil badan oo ka tirsan dawladda oo la xirxiray iyo diyaaradaha Israa'iil oo weerar ku qaaday xarumo ku yaala marinka qasiya dhulka Falastiin haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo galino taariikhdu waxay tahay 16 bisha 8 Agoosto sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug warar lagu kalsoonaan karno ay heshay caasimadda oo xogtaan daabacday ayaa sheegay in madaxweynayaasha labada dowlad goboleed Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe laga yaabo inay qaadacaan ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 sababta ay labadan maamul goboleed u diidayaan inay ka qayb galaan shirka dhuusamareeb 3 ayaa lagu sheegay inay tahay dhowr qodob oo ay rumaysan yihiin haddaan la xalin in natiijo la'aan laga gaari karo shirkaas saraakiil aad ugu dhow madaxweyne Dani ayaa caasimadda online ka soo xigatay in qodobada ugu muhiimsan ay ku doodayaan Axmed Madoobe iyo Dani kuna diidan yihiin in ay ka qayb galaan shirkaas ay kamid yihiin koow in dalka uusan lahayn ra'iisul wasaare iyo xukuumad fulin karta heshiis kasta oo ka soo baxay shirka dhuusamareeb 3 in hadalkii madaxweyne Farmaajo ka jeediyay golaha shacabku ahaa mid ka hor imaanaya natiijo kasta oo laga filan kara shirkaas inay meesha ka baxday kalsoonidii lagu qabay madaxweyne Farmaajo in madaxweyne Farmaajo meesha ka saaray doorkii aqalka sare ahaa inuu wakiil ka yahay maamul goboleedyada isla markaana kaalinta aqalka sare loo wareejiyay golaha shacabka Axmed Madoobe iyo Dani ayaa qarka u saaray inaysan ka qayb galin shirka dhuusamareeb 3 haddii aan xal laga gaarin dhammaan arrimahan taagan oo ay u arkaan inay furo u yihiin in natiijo wanaagsan laga soo saaro shirka dhuusamareeb 3 waxaa la rumaysan yahay in haddii Axmed Madoobe iyo Dani ay ku adkaystaan go'aankooda ah inaysan ka qayb galin shirka dhuusamareeb 3 laga maarmaan ay noqon doonto in beesha caalamka ay soo farageliso khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya halka Saciid Dani uu maanta gaaray magaalada Garowe madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ku sugan magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku leeyihiin kulamo gooni ah lama oga halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka shirka dhuusamareeb oo ay falanqeeyaasha siyaasadeed aaminsan yihiin inuu furo u yahay waqtiga kala guurka ay dalka ku jiro tan iyo xalay waxaa mashquul badan laga dareemayaa madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug oo ku wada hoydeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo midka martida loo yahay Galmudug shirka dhuusamareeb 3 oo mid xasaasi ah ayaa waxa diiradda lagu saarayaa haddii uu furmo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa 2021-2020 geesta kale waxaa shir afar geesood uga socda magaaladaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada shirkan 3 geesoodka ayaa waxa diiradda lagu saarayaa caqabadaha hortaagan furitaanka wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb sida caasimadda online waxa qiijiyeen la wareediyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaaladaasi wararka qaar ayaa sheegay in shirka sababta uu furmi laayay ay tahay maqnaashiyaha madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo wali tagan caasimadda Galmudug madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada Garowe oo muddo uu ka maqnaa isagoo safar ku joogay dalka Djibouti wararka qaar ayaa sheegaya in la xaliyay tabashadii ay ka qabeen shirka dhuusamareeb 3 labada madaxweyne Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Dani wararka qaar ayaa sheegay in Saciid Dani lagu wada in isla maanta uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb wafdi horraac ah ayaa la sheegaya inay ka soo ambabaxeen gaarkacayo waxaana wafdigaasi ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah kuwaas oo lagu sheegay inay wataan gaadiid aad u fara badan dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay inuu jabiyay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taala isagoo kala dhex baxay hadal jeedintiisii golaha shacabka kalfadhigiisii 7 Cabdi Xaashi wuxuu madaxweynaha ku eedeeyay inuu hadal jeedintiisii shalay ku bilaabay ilaalinta waajibaadka ka saaran dastuurka dalka balse uu isaga isla khudbadiisii ku jabiyay sharcigaas sidoo kale gudoomiyaha wuxuu madaxweynuhu ku eedeeyay inuu xaqiro jiritaanka aqalka sare oo maamul goboleedyada matala maadaama khudbadiisii ku sheegay in golaha shacabka ay matalaan maamul goboleedyada iyo inay yihiin hay'adda ugu sareysa ee matalada shacabka Soomaaliyeed
gudoomiye cabdi xaashi waxa uu sheegay in hadalkii madaxweyne farmaajo ahaa in golaha shacabka ku soo celin doono waxyaabihii ka soo baxay wejiga saddexaad ee shirka magaalada dhuusamareeb oo weli furmin uu ahaa mid qalad ah. ugu dambeyntii cabdi xaashi ayaa sheegay inuusan jirin cid ka hor imaan karta sharciga, isagana uu taagan yahay ilaalinta sharciga, wuxuuna hadalkiisii ku soo afjaray tix sugaana oo uu ku weeraraya hadal jeedintii madaxweynaha, iyadoo hadalkiisii laga dhadhansan karay inuusan madaxweynaha soo jiidan hadal la deeqsiin karo shacabka Soomaaliyeed. muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray khilaaf culus oo u dhexeeyay guddoonka aqalka sare iyo madaxtooyada iyo guddoonka golaha shacabka, waxaana markasta guddoonka aqalka sare uu ku eedeynayay inuu si ku talagal ah ay dastuurka dalka ugu tumanayaan madaxweynaha iyo guddoonka golaha shacabka. weli waxaan ku guda jirnaa wararkii Muqdisho. mid ka mid ah shabaabkii fuliyay weerarkii xabsiga dhexe dadka badan ay ku dhinteen ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen. Mustaf Sandheer oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaana horey u dhameystay 5 sano xabsi ah, sidoo kalena markii uu dib ugu laabtay Al-Shabaab mar kale la soo qabtay ayaa ka mid noqday kooxdii ka qayb qaadatay weerarkii xabsiga dhexe. Sandheer oo ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa saraakiisha ammaan ka siiyay xogo muhiim ah, waxaana la soo xiray 6 qof oo ka tirsan xabsiga dhexe. ninkan ayaa dalbaday heshiis ah in aan loo celin xabsiga dhexe oo la geeyo goobo kale si uu u dhiibo warar qarsoodi ah oo ammaanka ku saabsan. sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo haddii xabsiga dhexe lagu sii hayo in la dilo, waxayna taasi sababtay in loo wareejiyay xerada ciidanka asluubta ee kilomitir 7 oo ku taala agaarka Control Afgooye. 9 qof ayaa la xiray, 6 kamid ah uu sheegay Sandheere, waxayna kamid ahaayeen dad aan laga filin falkaas. si faahfaahsan ayuu u hadlay, laakiin lama hubo, waa la baarayaa iyaga dhan, ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka asluubta oo la hadlay warbaahinta Muqdisho. sidoo kale sargaalkan ayaa sharci darro ku tilmaamay Sandheere oo shabaab ah loo wareejiyo xabsiga kilomitir 7, isagoo sheegay in halkaasi aad ammaankeeda uusan ahayn mid adag isla markaana uu ka baxsan karo. weerarkii xabsiga dhexe ka dhacay Isniintii aan soo dhaafnay ayaa u muuqday in ay ka qayb qaateen xubno muhiim ah oo ka tirsan ciidanka iyo saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliya, waxaana uu noqday hadalhaynta ugu weyn ee Muqdisho. markaana aan fiirino Shabeellaha Hoose, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab. ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa waxay weli howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose oo jimcihii ay la wareegeen Al-Shabaab. ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa waxay weli howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay jimcihii kala wareegeen Shabaab. saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaya ayaa warbaahinta dowladda waxay u sheegeen in ciidamada ay gacanta ku dhigeen miinooyinka dhulka lagu aaso, gaadiid qaraxyo lagu soo raray. sidoo kale waxay sheegeen saraakiisha in ciidamada inay soo qabteen 3 qof oo ka mid ah Al-Shabaab xilli ay ku diyaarinayeen qaraxyo gudaha degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. 2015 ayaa sidoo kale ciidamada dowladda ku Amisom gacanta waxay ku dhigeen degmadan, balse dib ayay iskaga soo noqdeen. Al-Shabaab ayaana markaasi ilaa jimcihii aan soo dhaafnay wixii ka dambeeyay maamulayay. dekada weyn ee Muqdisho ayaa adeeg cusub oo muhiim ah laga hirgeliyay. si hayaa ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xariga ka jaray mashruuc laga hirgeliyay Muqdisho, kaasoo loogu talagalay inuu astaan u noqdo maraakiibta iyo doomaha isticmaala xeebaha Soomaaliya, si haddii ay cilad ku timaado ay ugu soo xirtaan dekada. adeegan oo ah mid casri ah ayaa bixinaya iftiin xilliyada habeenkii ah si ay u arkaan maraakiibta iyo doomaha haddii ay halis dareemaan. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo daahfuray mashruucan ayaa sheegay inuu muhiim u yahay dekada Muqdisho iyo dhammaan maraakiibta isticmaasha biyaha Soomaaliya. sidoo kale waxa uu tilmaamay in hirgelinta ay ku timid dadaal ay si wadajir ah u bixiyeen wasaaradaha kalluumaysiga iyo dekadaha dowladda Soomaaliya. dekada magaalada Muqdisho oo dakhli badan ka soo xaroodo ayaa sanadihii u dambeeyay ku tilaabsanaysay horumar kala duwan, waxaana mushawaca xalay laga hirgeliyay oo ku soo aadaya xilli haatan xeebaha Soomaaliya ay ka jiraan dabaylo xoogan. markaana daawadayaal warkii dibadda, diyaaradaha Israa'iil ayaa weerar ku qaaday xarumo ku yaala marinka Gaza ee dhulka Falastiin. diyaaradaha dagaalka Yuhuudda ayaa weerar khasaare geystay ku qaaday marinka Gaza ee dhulka Falastiin. war militariga Israa'iil ka soo baxay ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay bartilmaameedsadeen saldhigyo uu leeyahay ururka Xamaas ee Gaza maamulo, waxaana ay jawaab u ahaayeen sida ay sheegeen gantaalo xalay ku dhacay dhulka Yuhuudda xooga ay ku deegaamaysatay.
wararka waxay sidoo kale sheegayaan in gantaalo xalay ay ku dhaceen dhowr magaalo yuhuudda xoog ku haysato sidoo kale walxaha qarxa ayaa lagu xiray buufino waaweyn ayaa lagu weeraray magaalooyinka dadka Israa'iiliyiinta ay degan yihiin sidoo kale waxaa jira iska horimaad kooban oo ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xamaas ku dhex maray xuduudda Gaza inkastoo aan wax khasaare nafeed aysan ka dhalan daawadayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusubtahay fadlan daawada subscribe channel